بينما كانت حكومات الصينية تعتقل ملايين من الأويغور في معسكرات اعتقال نازية، رد الصينيون: أحسنت يا حكومتنا، أحسنت. shalay Shiinaha waxaa la dagaalamayay qoomiyadda Iigoorka ee degta Turkistan bari. waxaa la dilay raggoodii, la xirxiray dhalinyaradoodii, sidoo kalena la burburiyay guryahoodii. waxaa laga mamnuucay cunidda hilibka caadiga ah iyadoo lagu khasbay cunidda hilibyada ay reebtay diinteennu. waxaa la geliyey go'doon, waxaana loo diiday inay ka baxaan dalka China. waxaa loo sameeyey mid ka mid ah jeelasha ugu waaweyn ee laga sameeyo dunidan casrigan aynu joogno. waxaana sabab la'aan loo xiray malaayiin muslimiinta Iigoorka ah iyadoo dembigoodu uu yahay diinta ay haystaan oo keliya. maanta China waxaa go'doon la geliyey 10 magaalo oo ka mid ah magaalooyinkeeda kuwooda ugu waaweyn. magaalooyinkaasi ayaa u muuqda kuwo cidlo ah oo aysan jirin cid dhex mushaaxaysa. haddii shalay Iigoorka la baari jiray oo la iska ilaalin jiray, maanta qof walba oo Chinese ah wuxuu noqday mid laga fogaado agtiisa, lalana daba joogo aalad lagu baarayo. shalay oo ay ku eedeyn jireen Iigoorka inay fulaynimo iyo cabsi daraaddeed afka duubtaan marka ay mudaharaadayaan, maanta qof walba oo Chinese ah waxaa u duuban afka heer aad arkaysid magaalooyinka qaar inay ku jiraan safaf dhaadheer si ay u iibsadaan maradan afka lagu xirto. kelmadda Chinese-na waxay noqotay maanta mid laga dido. waxaa la geliyey go'doon dhan walba ah. dalkii maalmo ka hor uun ku faanayay inuu joogo meeshii ugu saraysay ee uu aadamuhu ka gaaro awood ciidan, dhaqaale iyo tiknoolajiyaba, waxay maanta si awood darra ka muuqato ugu liicday nolol yar oo ilmo aragtay ah. haddaba aan dib u milicsano daawadayaal sheekada dalkan China. 9 sano ka hor, gaar ahaan dhammaadka sanadkii 2011, waxaa la soo saaray filim loogu magac daray Contagoin. filimkan ayaa ku bilaabmaya gabar fadhida aeroportka Hong Kong, sugaysana diyaaraddii ay u raaci lahayd dalkii ay ka timid ee Maraykanka. gabadhan ayaa waxaa ka muuqday inay dareemayso xanuun, balse aysan garanin waxa uu yahay. waxay ku soo noqonaysaa Maraykanka, laakiin dhowr maalmood uun kadib waxay ku dhacaysaa jikadeeda ka hor intuusan ogaan ninkeedu inay dhimatay. dhimashada gabadhan wuxuu daha ka rogayaa curashada cudur cusub oo duulaan ba'an ku soo qaaday adduunka, wuxuuna ka dhigayaa dadka kuwa cabsi iyo argagax ku noolaada, wuxuuna u fidayaa si xawaare sare leh. dhacdooyinka filimkan la sameeyey 9 sano ka hor wuxuu u muuqdaa inuu yahay maanta mid xaqiiqo isku beddelay oo uu adduunku wajahayo. arrinta la yaab kale ayaa ah in filimkan cudurka looga hadlayo uu aadamuhu ka qaadayo xayawaanka loo yaqaano fidmeerta, waana isla noolaha loo sababeeyey in laga qaaday xanuunkan hadda uu adduunku la tacaalayo. waxaa la sheegaa in qarniyadii hore ay ka jiri jirtay dalka China gaajo ba'an, taasoo galaafan jirtay nolosha kumanaan ka mid ah dadkooda. waxaana la sheegaa in gaajo daraaddeed ay cuni jireen nolol walba oo dhaqaaqaya intuu rabo hala ekaade. maanta China wuxuu noqday mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan adduunka, dadkiisa badankooduna waxay noqdeen kuwo hodan ah. xayawaanadii shalay ay gaajo daraaddeed u cuni jireen awoowayaashoodna waxay u noqdeen cuntooyin dhaqan iyo diin ah. xayawaanada qaar oo uu qofka caadiga ah ka yaqyaqsanayana waxay ka yihiin xaggooda hilibyo qaali ah oo kuwo ka mid ah ay cunaan dadka hodanka ah oo keliya. haddii aan si kale u dhahno daawade, waa dhif iyo naadir inaad aragtid qof Chinese ah oo aan cunin hilib walba oo adduunkan yaala, dabcan marka laga reebo hilibka aadamaha. haddaba marka aan ogaanay sababta ay u caadaysteen cunidda noole walba oo ay ishoodu qabato, waxaa isweydiin mudan fidmeerta oo ay tan iyo yaraantoodii quudanayeen inay maanta tahay xayawaanka eebbe ka sokow u sababay xanuunkan. Over the last few years, activists say Beijing has done that. maalmo ka hor wuxuu adduunkoo dhammi hadal hayay hagardaamooyinka iyo dulmiga xukuumadda China ku hayso dadka Iigoorka ah ee dega dhulka uu China xoogga ku haysto ee Turkistan bari. dadkan oo ah dad haysta diinta Islaamka ayaa u xisaabsan China inay yihiin dad laga tira badan yahay. waxaana jiray muuqaal aan horey uga hadalnay dhibaatooyinka iyo dulmiga lagu hayo dadkaasi, laakiin waxaa xusid mudan in maalmihii ugu dambeeyey dhammaan baraha bulshada, goobaha dadku isugu yimaadaan iyo masaajidda badankooda laga habaarayay dowladda dalkaasi Shiinaha dulmiga ay dadkaasi ku hayso awgeed. sidoo kale waxaa barbar socday olole dadka Islaamka ah ay ugu ololeynayeen in la joojiyo adeegsiga iyo isticmaalka dhammaan agabka laga keeno dalkaasi si uu u dareemo burbur dhaqaale oo wiiqa awoodooda. nasiib darro ma noqon ololahaasi mid hirgala, xukuumadda dalkaasina ma noqon mid ka joogsata dulminta dadkaasi, laakiin waxaa hubaal ah
inuusan eebbe marnaba dayicin ducada qofka dulmanaha ah. haddii China shalay dadka lahaa aan goyno wax soo saarkooda ay ahaayeen dadka islaamka ah oo keliya, maanta gaal iyo islaamba waxaa laga midoobay goynta China dal ahaan iyo wax soo saar ahaanba. China oo ahaa qiblada ganacsiga adduunka, qof walba oo ku taamay yeglelidda ganacsi guulaystana uu u jihaysan jiray si uu uga soo adeegto suuqyadeeda, maanta magaceeda oo keliya wuxuu noqday mid laga argagaxo, halka qofkii u muuq eeg dadkeedana uu noqday mid ka soocan dadka intiisa kale, lagana dheeraanayo agistaagiisa. أستقل حافلة في باريس وسمعت إحدى الراكبات تهمس بيننا: امرأة صينية هنا ستنقل لنا العدوى جميعا، عليها العودة إلى بلادها. waxaa la yiri maalmuhu waa wareegto. haddii shalay uu China go'doon geliyay Igoorka, maanta waxaa go'doon ku jira dhammaan magaalooyinkooda kuwooda ugu waaweyn, waxayna isku bedeleen sida xabsiyo waaweyn oo aan qofna loo ogolayn inuu ka baxo wax walba oo uu yahayba. waxaana inoogu filan tusaale hooyadan Chineska ah ee ka baryaysa askarta inay u ogolaadaan inanteeda oo xanuunsan qabtana kansarka dhiigga inay geyso dhakhtarka. waxaa hubaal ah daawade in xanuunkan uusan ahayn mid ku kooban dalka China oo keliya. xilligan aan duubayno muuqaalkan waxay marayaan dalalka lagu arkay ilaa 22 dal, laakiin Shiinuhu waa dalka uu ka dilaacay, sidoo kalena ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee uu ku dhacay. intaasi oo dhanna waxaa dheer cabsida iyo argagaxa uu ku reebay noole aad u yar, dal maalmo uun ka hor isku tilmaamayay inuu gaaray heerkii ugu saraysay ee uu aadami ka gaaro awood nooc walba oo ay tahayba. way qorsheeyeen wayna dhegreen, laakiin eebbe ayaa ah kan ugu qorshaha wanaagsan uguna awoodda badan.